soo dhawaada saaxiibayaal filmkeena maanta wuxuu ku bilowmayaa iyadoo cabsi daran ay ka jirta adduunka dhammaan dalalkii khilaaf ku dhexeeyayna ay heshiiyeen waxayna si wada jira u dhiseen xarun lagu magacaabo ESD oo ah Air Space Defending 20 sano ka hor waxaa dhacay weerar aad u weyn oo ay sameeyeen shisheeyaal alienisa dadkuna way ka adkaadeen qaybihii markabka shisheeyaha ee ku soo dhacay dhulka ayaa dadka ka caawiyay inay fahmaan tiknoolajiyadda isla markaana ay helaan ka hortageeda ESD xarunteeda waxay ka samaysay meel sira oo ku taala Mareykanka oo lagu magacaabo Area 51 iyagoo kaashanaya teknoolajiyadda shisheeyaha dadka ayaa iyaguna sameeyay diyaarado u eg kuwa alieniska oo u suurtageliyay inay saldhigyo ka dhistaan dayaxa iyo qaar ka mid ah meerayaasha kale laakiin dadka dunidu maysan ogeyn inay jiraan aliens weli dusha ka eegaya dhulka madaxweynihii hore ee Whitmore waxaa si joogta ah ugu soo laalaabanayay riyooyin ajnabi ah oo uu ku arki jiray wax ay kubad wareegsan dhanka Area 51 General Adams waxaa lagu yeedhay xaalad degdeg ah alieniskii la qabtay 20 sano ka hor Umar miir beelay ayaa hadda si lama filaan ah u soo miirsaday iyagoona garir xooggan ku bilaabay qololkooda General Adams wuxuu rabay arrinta inuu kala hadlo agaasimaha ESD laakiin agaasimuhu halkaas ma joogin agaasimaha Davis weli wuxuu ku sugnaa Afrika halkaas ayuu kula kulmay hogaamiyaha qabiilka Umbutu iyo ciidankiisa oo aan haysan falaadhi yaqaanso balse haysta hub alien agaarkooda waxaa daasanaa lafaha shisheeyaal badan dadka deegaanku David kuma soo dhawaanin laakiin Catherine oo halka hore uga shaqaysay ayaa u sheegtay inay la jirto David waxayna David u kaxaysay markabkii alienka ee hore dhulka uga soo dhacay 10 sano ka hor dadka deegaankina waxay la dagaalameen alieniskii markabka uga soo baxay Umbutu wuxuu sheegay in loo maalmood ka hor nalalka markabkani si iskooda isku shideen sidoo kalena laga helay god weyn oo muujinaya inay aliens ku doonayaan gudaha dhulka inay qodaan si ay dunida u burburiyaan laakiin markii markabka weynaa la qarxiyay shaqadiisu way istaagtay markii ay gudaha u galeen markabka waxay arkeen kombiyuutar signal diraya David wuxuu markiiba gartay internet ay qaladaan doonaysa in la helo gargaar oo macnaheedu tahay in markabkan caawimaad ka dalbanaya alienski kale waxa ugu halista badan wuxuu ahaa in signalkan jawaab laga bixiyay isla waqtigaas General Adams waxaa loo sheegay in saldhig kale uu ku yaala meeraha dibadiisa gebi ahaanba la burburiyay dadkii oo dhanna waxay galeen xaalad degdeg ah Afrika David waxaa soo gaartay digniin halka Catherine ay wali isku daysay inay fahanto calaamadaha dahabiga ah Umbutu isaguna wuxuu la mid ahaa Whitmore wuxuu soo arki jiray kubad wareegsan oo muuqata islamidii aan hore u soo aragnay inka dayaxa dadka saldhigga jooga way argagaxeen markii deegaanku noqday mid aan caadi ahayn si lama filaana waxaa meesha u yimid mashiin kubadda oo wareegsan islamidii Umbutu ku arki jiray riyada waxay u diraan signal David iyo madaxweynaha David wuxuu fahmay in kan yahay markab madaxweyne Lanford waxay tiri waa inaan isla markiiba weerarnaa laakiin David wuxuu yiri kuwan maaha alieniska hore waxaa laga yaabaa inay yihiin kuwa kale oo yimid si nabad leh madaxweyne Lanford waxay tiri waa inaan arrintan u codaynaa codayntii waxay ku soo dhamaatay in la weeraro amarkii la bixiyay Commander Chang wuxuu hawlgeliyay hubka weynaa ee dayaxa wuxuuna si fudud u soo riday kubadii weyneed David wuxuu yiri hadda way rideen walaan aragna waxay ka samaysan tahay iyo teknoolajiyadda ay sido Lanford way ogolaatay waxaana jirtay koox saynisyahano ah Lanford khudbad ayay jeedisay iyadoona shacabka u sheegtay inay dunida ka badbaadisay weerar alien cusub Whitmore markuu TV-ga ka arkay wuu argagaxay sababtoo ah wuxuu rumaysnaa in kuwan aysan ahayn alieniskii hore wuxuuna doonayay inuu uga diigo madaxweynaha laakiin gabadhiisa Patricia ayaa tiri ku kalsoona madaxweynaha cusub laakiin markii dambe waxay ogaatay inuu aabaheed iskaga baxay guriga dhinaca kale Chang oo aduuliyaha qaaday David iyo kooxiisa si uu ugu raro dayaxa si uu u gaarsiiyo burburka markabkii kubadda ahaa burburka markabka waxay ka heleen qayb weli shaqaynaysa ayaa isku diyaariyay inuu qaado qaybtaas dhanka Mareykanka waxa loo dabaaldegayay guushii dagaalkii hore laakiin Whitmore wuxuu si lama filaan ah u yimid goobtii khudbadda isagoo isla markiiba ku dhacay dhulka oo dareemay xanuun daran isla waqtigaas Umbutu isaguna wuxuu dareemay mid la mid ah xanuunka uu dareemay dayaxa waxaa lagu arkay markab cusub oo aad u weyn sida kii hore wuxuuna u dhaqaaqay dhinaca dusha dayaxa David iyo kooxiisa oo baariyay markabkii kubadda ahaa ayaa si degdeg ugu cararay markabkoodii sababtoo ah markabku wuxuu sababay dhulgarir xooggan Chang ayaa markabka kiciyay Charlie oo la socdayna wuxuu isku dayay inuu soo qaado qaybta markabka ay heleen laakiin markii ay bixeen waxay dareemeen in markabku leeyahay beerta cufisjiidka oo soo jiidanaysa Chang wuxuu ku amray mid ka mid ah duuliyaashiisa inuu howlgeliyo hubka weynaa mar kale laakiin waxba kama uusan bedelin markabkii weynaana si fudud ayuu uga jawaabay isagoona qarxiyay hubkii lagu soo tuuray Chang wuxuu ku amray dadka oo dhan inay saldhigga ka baxaan laakiin goor dambe ayay noqotay markabkii weynaa wuxuu baabiyay saldhiggii dayaxa iyo meelo aad u weyn oo ku hareeraysan ESD waxay howlgelisay sistamka difaaca laakiin markabkan cusubi aad buu uga xooganaa kii hore wax kasta oo hortiisa yaalana si fudud ayuu burburinayay wuxuu soo gudbay dhulka magaalooyin badanna way burbureen David wuxuu xisaabiyay in markabku u socdo xagga badda wuxuuna qiyaasay inay doonayaan halka inay ka qodaan gudaha dhulka sababtoo ah badda hoosteeda aad ay u qoto dheer tahay Chang oo markabkiisa duulinaya wuxuu ka badbaaday burburo badan Ladford
waxay amartay in magaalooyinka badda agagaarkeeda in laga daadgureeyo dadka. Aabaha David Julius oo kalluumaysanayay ayaa arkay markabka weyn, isagoo u sheegay in markabkani uu ka wan yahay kii hore, laakiin dooni kale ayaa ku dul dhacday doontiisa oo jabisay. Alieniskii xirna ayaa si waaliya u kacay. Markii David iyo dadkii kale yimaadeen, Whitmore si dhumaaleysi ayuu galay qol gaar ah, halkaas ayuuna ka sii daayay mid ka mid ah Alieniskii si uu ula hadlo. Alienku wuxuu qabsaday Whitmore oo wuxuu u adeegsaday jirkiisa si uu ula hadlo dadka kale, isagoo leh way timid waqtigan sugayay, way timid. Catherine waxay jirtay calaamadii wareegga ahayd, waxayna weydiisay micnahay leedahay, laakiin Alienku aad ayuu u cadhooday. Militariga ayaana rasaasiyey, laakiin wax saamayn kuma yeelan. Umbuto ayaa yimid oo adeegsaday seefihiisa si uu u jabiyo gaashaanka weyn ee jirkiisa. Markaas ayaa Alienkii dhabtaha gudihiisa ka soo baxay, waxaana isla markiiba dilay Umbuto. Dhanka badda, carruur gaadhi saaran oo waalidkood ku waayay musiibo ayaa helay Julius oo miir beelay, waxayna go'aansadeen inay badbaadiyaan oo ay qaataan. Area 51 saynisyahanadu waxay baadheen markabkii. Davidna wuxuu ogaaday in way timid ay ka dhigan tahay in boqoradii Alienisku timid, iyadoo nidaamkeedu la mid yahay midka shinnida, shaqaale badan iyo hal boqor. Saldhig Satellite ayaa soo diray muuqaal toos ah oo muujinaya markabka oo badda hoosteeda ka qodaya dhulka si ay u gaadhaan xudunta dhulka. Taasi haddii ay dhacdana, gebi ahaanba dhulku wuu burburaya. Ladford waxay amartay in la bilaabo hawlgalka lagu dilayay boqoradda. Doronis ayaa marka hore sii tegi doona si ay u jajabiyaan difaaca markabka. Kadibna diyaaradaha xamuulka qaraxa ayaa weerarka bilaabi doona. Markii duuliyayaashu gaadheen markabka, difaac aad u xooggan ayaa shaqeeyay. Jack wuxuu yidhi, marka kaliya suurtagalka tahay waa inaan gudaha u galno. Danielna uu raacay, inkastoo ay halis ahayd. General Adamsna wuu ogolaaday. Diyaaradaha oo dhan waxay galeen gudaha markabka, waxayna ku arkeen gudaha meel u eg adduun kale. Intaa kadib waxaa soo naaxay Whitmore, wuxuuna u sheegay gabadhiisa Patricia in boqoraddu og tahay in duuliyayaashu imaanayaan, taasoo ka dhigan inay tahay shirqool. Patricia waxay u oroday xagga Admis, laakiin goor dambe ayay ahayd. Maxaa yeelay markabku wuxuu sii daayay hir aad u xooggan oo joojiyay dhammaan diyaaradaha. Si kastaba ha ahaatee, bombooyinka waa la sii daayay, laakiin waxba kama qaadin difaaci boqoradda. Hir labaad ayaana joojiyay Satellite-kii Area 51 iyo xaruntii madaxweynaha. Markabku wuxuuna weeraray xarunta, wuxuuna ku dilay Lanford iyo dhammaan dadkii la joogay. Admis ayaana noqday madaxweynaha cusub. Jack, Daniel iyo duuliyayaal kale ayaa noolaaday, waxayna gudaha markabka ka raadinayaan meel ay isku qariyaan. Area 51 saynisyahanadu waxay jabiyeen qaybtii markabka kubadda ahaa ee laga keenay dayaxa. Intaa kadib waxaan ku xasuusinayaa inaad like saarto muuqaalka oo hilmaamtay inaad like saarto channelkana aad subscribe tiraahdo haddii aad ku cusub tahay. intaa kadib waxaana soo baxay kubad weyn oo u eg robot. saynisyahan Faylor ayaa taabtay kubaddii ayaana gacantiisa qabsatay, waxaana si toos ah uga baratay Ingiliishka maskaxdiisa. Markii kubadda hawl gashay, boqoradda Alienisku waxay ogaatay goobta ay joogto. Kubaddu waxay tiri, waxaan halkan u nimid inaan ka digno khatar soo socota. Waxay sheegtay inay hore ula dagaalameen Alieniskan, kuwaasoo tiknoolajiyad aad u horumarsan leh, kuwaasoo qodista meerayaasha ka noolaada. Waxayna tiri, anigu waxaan ahay midkii ugu dambeeyay qoomkaygii, kuwa kalena waa la baabiiyey. Waxayna sheegtay tiknoolajiyadda ay sida inay sheegayso inuu jiro meerayaal badan oo qarsoon oo ay ku tababaraan dadka ka badbaaday weerarada Alieniska. Hadda oo kubadda la hawlgeliyey, boqoradda ayaa si sahlan u soo raadraaci kartaa. David wuxuu yidhi, haddii aan ognahay inay halkan imaanayso, waxaan u dhigi karnaa dabinka, waxayna u baahdeen keliya hab lagu raadiyo. Admis wuxuu sheegay inuu hayo raadaar ku shaqeeya dagaalkii hore. Waxay duuliyayaasha u sharaxeen in Satellite-ku shaqayn karin, sidaa darteed midkood waa inuu si toos ah u qarxiyo bombooyinka, taasoo la micno ah inuu nafurnimo samayn doono. Patricia waxay doonaysaa in iyadu samayso, laakiin Whitmore uu ka diiday oo yidhi anigaa tegaya. Julius ayaa soo miirsaday, wuxuuna carruurtii waday ka codsaday inay geeyaan Area 51, laakiin gaadhigooda shidaalka ayaa ka dhammaaday. Wuxuuna hareeraha ka helay bas iskuul oo carruur badan ay saarnaayeen, laakiin darawalkii uu ka cararay. Julius ayaana baskii kaxeeyey, isagoona carruurtii la aaday Area 51. gudaha markabka, duuliyayaashu waxay heleen hangarkii Alieniska. Jack hore ayuu u socday si uu u mashquuliyo Alieniska, isagoona farta dhexe u taagay si ay isaga ugu mashquulaan intay saaxiibadiisu xadayaan jeedyada Alieniska. Laakiin Alieniski ayaa bilaabay rasaas, duuliyayaashii kalena jeedyadii ayay isla markiiba qaateen, iyagoona isla markiiba Jack la baxsaday. Alienisku waxay bilaabeen inay albaabada xiraan, laakiin duuliyayaashu si ilbiriqsi ah ayay uga baxsadeen. Ka hor intaan albaabku xidhmin Area 51, dhammaan diyaaradihii diyaar ayay ahaayeen. Patricia waxay go'aansatay inay raacdo aabaheed oo caawiso, inkastoo uu ka diiday. Julius oo baska carruurta wata ayaa soo galay goobta, isla markaana boqoradii Alieniska ayaa la timid ciidankeeda. Dagaal weyn ayaana ka bilowday meesha. David wuxuu sameeyey signal beena oo ay kii kubadda si boqoraddu u soo daba socoto, wayna raacday dabinkaas. Patricia ayaa aabaheed ku tiri nabadgelyo maadaama uu socday hawlgal khatar ah. Whitmore wuxuu galay markabka boqoradda, wuxuuna qarxiyey bombooyinka. In muddaha kadib waxay moodeen in dagaalka lagu guulaystay, laakiin boqoraddii weli way nooleed sababtoo ah difaaceeda tamarta ayaa badbaadiyey. Alieniska ayaa weerar xooggan ku qaaday hubka weynaa ee saldhigga, iyagoona halkaas ku burburiyey. Ciidankii dhulka ayaa dib ugu laabtay saldhigga si ay u ilaaliyaan kubadda. Duuliyayaashu waxay isku dayeen inay weeraraan boqoradda, laakiin difaaceeda waxba kama qaadin. Patricia waxay ogaatay in boqoraddu markay wax weerarto ay dhowr ilbiriqsi furto difaaceeda. Waxay ka faa'iidaysatay fursaddaas, waxayna ku dhufatay meesha ay daciifka ka tahay. Boqoraddu waxay weerar ku qaaday Patricia, laakiin iyadu waqtigii saxda ah ayay bannaan u furtay. boqoraddu waxay ka daba tagtay Patricia, laakiin Dylan iyo
duuliyaashii kale ayaa yimid oo u isticmaalay teknolojiyadda boqoradda oo ay ku weerareen iyada gudaha Area 51 aliensku waxay gaareen kubaddii Umbuti iyo Fowler ayaa dagaal adag la galay oo dilay dhammaan alienskii halkaas joogay boqoraddu waxay bilowday inay jabiso saqafka saldhigga si ay u hesho kubadda jeetyada aliensku waxay sameeyeen saqaf adag oo ku wareegsan boqoradda Jack iyo Dylan way ka baxsadeen iyagoo isticmaalaya Tristret manual ah markii boqoraddu gudaha u gashay waxay qabsatay kubaddii laakiin Jack iyo Dylan waxay dib u wareegeen controlka jeedyadooda waxay ku rideen rasaas xoog leh taasoo jabisay gaashaankii boqoraddu si daran ayay u dhaawacantay waxayna bilowday inay hoos u dhacdo David oo watay baskii carruurta ayaa arkay inay hoos u soo dhacayso wuxuuna si degdeg ah u leexiyay baskii isagoo ka badbaaday kubaddii way xorowday sidii dagaalkii hore markii boqoradda la dilay qodista dhulku way istaagtay markabadii alienskuna way burbureen dadka adduunkana waxay u dabaaldegeen guusha labaad ee ay ka gaadheen alienska muuqaalkeena maantana halkaas ayuu ka egyahay fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir channelka subscribe saar halkan waxaan ku soo gudbinaa filmo aad u xiiso badan muuqaalkana like saar haddii uu ku cajabiyey filimka magaciisana hoos ayaan idiin soo dhigay